أرنتا تاريخي قابا تلح مانتا أرنتا سوي يستاهشا تاريخ إن لو قره مير والبلغاها الله صحافة اللي قد قفة وحقيتين للدلو ولشده انتي قالوا إنه لا نسا انتي مالك يقولها قوب تشوك بانها وطا صومالي وحوي كي وحكو يلمه يشده إناديرك إن شاء حد هاي يلا صورنا في مقالة تلح وحكا عين انت صوك لولي إنانا كقيب قلب انت صورنا إلهي انت آيات صوك ولكم في القصاص حياة يا قري وعدي أرنتا مرور بأرنتا نوكلا مركا يتمادو أي سيدا صوك كلا يقولنا أي عيدي كلا يسوي أنا رجينا إياه أرميه إن بدن مرقي ولا فهم واي ولا وضع بيلوضة ولا لها أي نوضع قرر إنه ميشن إلهي يسلد شيء كده دعي إن أي تاسنا سيدا صوك كلا لو صوت ضبان الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ولا ليال مالنتي أحد هاي يلا صورنا في مقالة تلح وحكا دعي أرن آدي آدو وناكسن أرن تاريخ لقلي دونته إسلام مركانا وحبضا وخيرا لقيه الدون أرن وافقصا شريعة إسلامك إلهينا أورالك إياه وقضب كأنك هذا ما أنت خطبت إن نقص قالن دونه أرنتا سواحة يهي ولا ليال تضبات كي هراء الله شرطة في 4 ديسي سيدين ودروين ويل دلنيراء أو كم من دلنيراء الديغان كم أيا وحقوق بحي ويل كلا أو إسلام دلنيراء الديغان كم من صحة دراء إلهي وحين وقبرينا كاردنتي إنه جلديسا لحالسيو دنبيجي سنة ودافو dadka maaragtay kitaabkooda midigta laga siinayna uu ka yeelo wiilka kale ee shaydaanku khalday ee marka uu ka adeegsaday waxaan Ilaahay uga baryaynaa tawbada inuu soo siiyo bishii Ramadaan oo soo socotayna Ilaahay uu furo albaabada jannada iyo albaabada tawbada waalidkii dhalay inanka maaragtay dhintayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu marka ugu horeysa caawil khayr qaba uu ka siiyo marka xigtana sabir iyo iimaan buuxa Ilaahay inuu ka siiyo agoonta yaryarna Ilaahay uu maaragtay tarbiyad wanaagsan iyo xanaano fiican Ilaahay uu u fududeeyo inta markaynu soo dhaafno arintaas haddii ay dhacday وحقرتكي وأوكاه والقلي سيدي اللي يقاني وشرعات ونفرتي عدة وحقيسته أيا وحال الربائن يددال موجسو ددال قاسو أي كرها لقيان أما يكون قنعينيان ولا له هذا أرضاك كلا وحيلو أي قاعدة سو شرعات بايت المانتي أو أيوه الرئيسو قاعد كل الله إلا صوته خير الله السيو بيشي أرنتاسي أي كنتمت واد دالين إنكي قاعد كل لها هان إسلام مركبة ويقبتين سم السورية له أي هوشة مع القبتين قرادي كلامها خير بدن الله سيئو روايس حكميا روايس عشدين وسيدي لوية قان مركب قرضعه ضدكم يس حكميان وواحد بدن أي حيريان يجون رنتي وكسر دلالين إسلام مركبة وحاحكتي maalintaasi arbacadii bay ahayd maalintii isbuucii kale oo axadii inankii dambiga geystay oo xidhan lagu wareejiyay beeshii dhibtu ay gaadhay looguna wareejiyay sidii shareecadu ay tilmaantay oo aabihiis oo dhiiga ama dhaxalka lahaa ugu horeeyay gacanta loo geliyay isagoo silsiladaysan arrintaasi waxay muujinaysaa wanaag fara badan bay muujinaysaa waxay muujinaysaa in shareecada Ilaahay sidii ay dhigtay marka arrimahan oo kale ay yimaadaan in la maro sidii shareecadu u tilmaantay baa loo maray waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin
waxaynu u baahannahay marka khudbadeena maanta inaynu arrintaa wanaagga oo labada beelood oo walaalaha ah ay sameeyeen oo isweydaarsadeen inaynu maanta halkan ugana ducayno qolo walba ugana hambalyeeno si loogu daydo oo khayrkaasi uu sidaa mar walba arrintan oo kale markay timaado ay sidaas oo kale iyaguna ay ciddii kale isu xilqaanto sidii aad wada maqlayseen jimcaha ka horreeyey halkan waxaynu kaga hadlaynay dulmiga iyo dhiigga daadintiisu sida ay halaagga u tahay oo bulshada waaxid iyo wadarba ay u baabiiso oo aakhiri adduunba loogu baaqoon maalinta aad iyo aad baynu u qoyraysnayno arrintaa dhacdadaasaa ugu dambaysay dhacdooyin kale oo fara badanna way ka horreeyeen maantana runtii waxaynu ku faraxsannahay arrintii oo markiiba dhammaatay baynu aad iyo aad ugu faraxsannahay walaalaha labadaa beeloodba waanu hambalyeynanaa waynu u ducaynaynaa beeshii arrinta tan inanka waxgeystay uu ahaa dee halkii u sarraysay saddexdii qodob ee shareecadu tilmaantay qodobkii ugu weynaa ugu sarreeyey oo uguna adkaa weliba waa qodobka ugu adag ayay sameeyeen oo inankiibay soo qabteen iyaga waajibkoodii iyo mas-uuliyaddoodii u weynaa way guteen wixii dambe waa maxaanku ihahdaa dee wixii maaragtay qoladaa kale ay kusoo warceliyaan oo hadalka kusoo gudbiyaan unbaa looga hawlgalaa laakiin culayskii u weynaa markaasuu soo afgo-ay waa yahay waxaynu kaloo iyagana u hambalyeynaynaa ardaagii kale oo iyaguna muwaafaqo iyo gobonnimo sameeyey oo ahayd war mar haddii wiilkii hore inaga dhintay labada wiiliyeynaan israacine wiilkana haynoo noolaado arrintaasna waa gobonnimo iyo milgo iyo karaamo iyo sharaf weey markaa labadii qolaba muwaafaqo iyo karaama ka muuqata qoladanina waxay ku soo tashadeen arrintaa qoladanna arrintaasay ku tashadeen khayriga waynu u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu khayr fara badan siiyo oo sidaa ay maaragtay talada isula heleen talooyinkooda dambe iyo aayahooda iyo wixii muraadu ay leeyihiin ilaahay ha u fududeeyo khayr fara badanna allaha siiyo intaa waxaan u soo qaadanayaa oo arrintan aan jimcaha ugu soo qaatay arrintan oo kale aad bay u dhacday in badan baa taleex waxaa la maqlay qof baa lagu dilay oo haddana qof baa lagu dilay oo rag baa la dilay oo dumar baa la dilay oo hebel baa la dilay oo miskiin baa la dilay in badan bay maqashay haddana waxaa daba joogi jirtay in qofkii layska sii daayo arrintaasoo khayri ah baa ka dambaysay waxaan rajaynayaa waddadaasi inaanay inaga istaagin oo ay noqoto ilaahay inaguma keena wax dilee laakiin hadday soo noqoto qadar rabbi waa meesheede in sidaa lagu wado sidaa khayrkaa oo dhacay maalinkii dhoweyd inay noqon doonto ilaahay idankii tusaale lagu hirtoo lagu daydo oo cid kastoo waxgeysata rag iyo dumar waayeel iyo carruur ku doonaa ahaadee in bal tiirka la geeyo ninkan gacankudhiglaha qofkan gacankudhiglaha waxay hawshu ku hagaagaysaa oo dadku ku walaaloobayaan oo wixii dhacay lagu ilaawayaa waxa weeyaan in la wareejiyo ninkii gacankudhiglaha dadkaa markaa lagu wareejinayo iyagaa khiyaar u leh oo shareecadu ay siisay inay diloodaan inay mag ku iibsadaan oo cafiyaan oo iyaduna karaamo ah iyo inay iskaba cafiyaanba saddexda qodobba shareecadu waa qoraysaa arrintaas waxaan leeyahay sidaa ha lagu wado ilaahay idankii ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu arrintan jidaynayey wuxuu ka lahaa xikmad iyo yool qur-aanka waxaad ka helaysaa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun qisaasta iyo in laysu dilo ciddii dhiig gashay dhiigga laga jaroo laysu dilo waxaa idinku jirta bulshada muslimkaayoo nolol baa idinku jirta waxaa idinku jirta nolol oo nolosha ku jirtaahi waxay tahay dee horta gacankudhiiglihii isagu waa la dilo isagu nolol waa seegay waa haddii la qisaaso haddii la qisaasi waayo oo macnaha dadkii ardaagii xaqan lahaa ay cafiyaanna dee isaga laftiisa nolol baa u soo baxdayoo berri ka maalin
dib looma dilaayo haddii laga heshiiyo isaguna ciddan betoogan maayo waa nin cashar qaatay walakum fil qisaasi xayaatun balaada u fiirsada aayadda intaa marka la akhriyo layn ma dhamma layn yacni hal sadar way ka yartahay haddana balaaqada ku jirtaay waa meeshii ugu dambaysay wey walakum waxaad leedihiin bulshadiiyey fil qisaasi isu qisaasidda xayaa nolol baa ay ku jirta culimada ka hadla balaaqada iyo cilmiga balaaqada ka sheekeeya markay ka hadlayeen aayaddaa waxay yidhaahdeen balaaqada ku jirtaay waa balaaqadii ugu dambaysay macnaha balaaqa waxaa la yidhahdaa qofku hadal badan inuu jeediyo hadal fara badan inaad jeediso balaaqa maaha balaaqa waxaa la yidhahdaa hadal gaaban adigoo adeegsanaya oo macnihiina aan waxba ka tegin qur-aanku wuxuu isticmaalaa hadalka nebigana way ku badan tahay calayhi salaatu wasalaam eray gaaban baa la cabiraya diintii oo dhanna way soo wada gelaysa walakum fil qisaasi xayaatun haddii bani aadamku ku hadli lahaa waxaa laga yaabaa in fara badan oo bugaaga inay ku oran lahayn laakiin ilaahay intaasuu kaga hadlay carabtii hore baa waxay ka hadli jireen qisaastu faa'iidada ay leedahay iyadoo aayaddaa macnaha ay sheegayso iyagoo ka hadli jiray markaasaad waxaad arkaysaa markaad mahmahayahooda akhrido inay erayo fara badan sii daynayaan oo waxaa ka mid ah qatlulbacdi ixyaa'un liljamiic bay odhan jireen dadka inta yar la laayo yacni qayb dilkood baa waxay sababaysaa dadkoo dhammi inay noolaadaan oo haddii halkii qof ama labadii qof ee waxgeystay la dilo bulshada intii kale way noolaanaysaa birtuna way joojinaysaa sidaa way odhan jireen waxay kaloo odhan jireen akhiru lqatla liyaqila alqatlu macnaha siday aayaddu u balaaqo badan tahay oo erayadaasoo dhan ay uga balaaqad badan tahay baan kutusaya akhiru lqatla dilka badiya qisaasta badiyay odhan jireen liyaqila alqatlu si uu dilku u yaraado yacni qisaasta mar walba waa la fulinayaa si dilku u yaraado markaa qisaasta badinteeda waxaa lagu yaraynayaa dhiigga bilaashkaa baa lagu yaraynayaa fahm macnaha qisaasta badiya dhiiggaa yaraanaya saasay odhan jireen waxay kaloo odhan jireen alqatlu anfaa lilqatli waa mahmahyaha ay carabta hor dhihi jireen shareecaduna way qorto dee culimmadaas ay qoray alqatlu anfaa lilqatl dilku isagaa dilka joojiya oo marka maanta ninkii waxa la dilay tiirka la geeyo dadkao dhan oo wada daawanaya oo saxaafadda lagu qabto oo bulshadu ay marag tahay ama tii wax disho dumarka la keeno waxaa imaanaysa dilkaa yaraanaya dilku sidaasuu kuba yaraan karaa si kale oo ku yaraan kara ma jirto waa in dadka hortooda lagu barxaa waa yeel hortiisana caana lagu barxaaye waa in hortooda la keenaa hebelkay yaqaaneen oo maanta wax dilay kibray oo kawligaysa intaasoo dhan ilaahay intaa yar aayaddaasuu kusoo kabay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli albaab waxaynu leenahay walaalayaal ummadda muslimkaahay shareecada ha lagu wado arrintaa runtii maalinkii dhaweyd golaha goobjoog baan ahaa waxaan qiray oo caddeeyey arrintaasoo kale weliga inaanan ka qaybgelin kulan noocaasoo kale ah oo muwaafaqo heerkaa sare ah oo la wareejiyey inankii maaragtay dhibta geystay oo haddana markiiba qoladii kalena ay karaamadii iyo cafiskii fidiyeen waxaana weligay goobjoog u ahayn oo igu cusbayd bay noqotay markaasaa waxaan iska jeclaystay deegaankan iyo deegaamada kaleba in sidaa shareecada loo raaco oo qofkii wax dilay si tala mugle lagu dhiibo la yidhaha wakaa ka tashada qofka bani aadamkaana waxaa qancisa in indhahaaga uu buuxiyo aad aragto ina rag waxaa in badan isku dila in la arki waa had iyo jeer soomaalida waxaa isku dilaya marar badan arki waa cid baa dhib laga gelaya la qiimayn maayo waa la isku tuurtuuraya war hooy ragow arki waagu waa waxyaabaha dhiigga fududeeya war hooy haddaynu sidaa ku socon lahayn dad fara badan oo birmageydo ah oo ganacsato leh oo culimo leh oo macallimiin leh maanta maynaan weyneen arrintaa markii shareecada laga baydhay oo qisaastii la sahladay waxay keentay dad fara badan oo inagu qaaliya oo birmageydaa in la waayey dad fara badan oo qaali ah oo ganacsato ah oo indheer garad oo ilqabatin leh inay deegaanka ka qaxaan oo deegaan walba ay ka cararaan sababtaa soomaalidu waxa weeye kii wax ku yeelay ma heshida in adeerkii baad hesha kii wax ku yeelay heli mayside in adeerkaa baad qarka ka daraysaa xabadda markaba u dhufanaysa
ama markuu xoolo laga dhacay mid kale oo isku heer ayiin oo inaadeerkiya baa xoolihii ka soo dhacaysa haddii shareecada la waafaqi lahaa waa dulmi taasi haddii shareecada lagu socon lahaa dad fara badan oo qaaliya maynaan weyneen oo maanta inaga maqan dad fara badan oo qaxay oo meelaha u cararay oo wadamada dibadooda aaday maynaan weyneen arrintaasi way istaahishaa taariikhda in lagu qoro meel walba lagaga hadlo saxaafadda laga geliyo arrintaa taariikhigaa baa taleex maanta ka dhacday waxaana rajaynayaa arrimihii in badan murgay oo la fahmi waayey oo labada beelood oo walaalahayo aynu wada garanayno meeshan ilaahay isla dejiyey ka dhex dhacay in ay taasina sidaasoo kale lagu soo dabaali doono oo bal wixii tegay tagoo tiigsimaad ma lehe bal wixii dambe sidaa lagu xaali doono dhibkii dhacda meel looga soo walajeesan lah walakum fi lqisaasi xayaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iqaamatu xaddin biardin khayrun liahliha min matari 40 sabaxa xadiidkaasi waa xasanu ligayrihi qaybna waxay ku waqfiyeen saxaabada qayb ka mid sida abu hurayra oo kale yacni qisaasta oo la fuliyaayo waa wax weyn waa wax dalka iyo dadka iyo diintoo dhan dan u ah wuxuu yidhi hal xad oo la fuliyo yacni xad oo maalin xad la fuliyey shareecada islaamka xuduudeedu waa badan tahay dhiiggaa ka mida tuugadaa ka mida burcadaa ka mida waxaa ka mida zinada waxaa ka mida khamriga arrimaha noocaas oo shareecadu ay xad ka jidaysay xadka ha laga jar la yidhi hal maalin oo xad la fuliyo dhulka lagu fuliyo baa waxay uga fiican tahay 70 subxood waxaan u jeedaa 40 subxood oo roobku aanu kala qaadin 40 maalmood oo roobku uusan inaga kala qaadin waxaa inooga fiican hal xad oo maalin la oofiyey bal haddoo fiirsada hal xad ah ama xadkii dilka ama xadkii zinada oo dhagax lagu dilo oo mar jeedal ah ama xadkii khamriga laga jirayo khamriilaha ama xadkii tuugada laga jirayo gacanta la jaraayay iyo wixii la mid ah hal xad oo la fuliyo baa waxay uga khayr badan tahay dhulka 40 maalmood ama subxood oo roobku aanu kala qaadin waxaanse idiin sheegayaa shareecadu ay tilmaamaysaa haddii tanoo kale ay timaado markaba la dhammeeyo in roobku imaanayo in deegaanka dhiigu uu ku yaraanayo in dadku isjeclaanayaan inaan la kala cararaynin oo ilaahay baan idinku dhaashay wax hadal haya ma aragteen maalintii labadaa beelood ay si fiican isu gacanta isu saareen oo hawshii sidii la rabay qolo walba ay dawgeeda martay aniga maalintii baa igu dambaysaba wax ka hadlaya mid cararaya maad arag mid qori la cararaya maad arag ninkiis ergada ahay meel fog ka yimi gaadhigiisu shidaal kurta waa raacay waa iska tegey maxaan ku idhahdaaye kii ka teliya hawsha si nabad u fadhiya kii waxyeeladu ay gaadhay si nabad u fadhiya kii wax geystay iyo kii wiilkiisa waxa loo geystay galabta shacbi meel ka wada cabaya shareecadaa sidaa qortay la isdabadabaysan maayo walakum fi lqisaasi xayaa qisaasta waa lagu noolaadaa iyo heshiiska badde ilaa tan waa qisaas kama dhaca warbar haddii ninkii aan kuu dhiibay de aniga waa iga xilaada haa aday kuu taalla haddaa cafisan adiga cafiso sii daayo xarig ka sharag haddaa dilootan aday kuu taalle kii waxaan geystay oo ka soo dhalaalay ka kale meheradiisu tegaya shaahna wuu dalbanaya waa caadi wax uu ka cabsanaya ma jirto waxaa laga yaabaa 4 habeenoo hawshaasi taagnayd in dad badan aanay seexan in dad badan ay walwalayeen oo weliba ay ugu horreeyaan dadkii dhibtan ay gaadheen inuusan si fiican u gamin inuu islahaa maxaa wiilkaagii xaggee xaaladiisa maxaa lagu odhan doonaa maxaa lagu qaabili doonaa laakiin waxaa markhaati laga yahay oo caddaana saacaddii hawshaasi dhammaatay saacaddii ku xigtay inuu si fiican u seexanayo in culays badani ka degayo inuu sabrayo oo uu dareemay in la arkay oo indhahiisu ay dadka buuxiyeen oo arkiwaa aanu meesha ka jirin arrintaa aad iyo aad baynu walaalayaal ugu nuxnuxsananaa barwaaqo fara badan iyo xoolo badan iyo horumar badan waxaa inooga fiican innagoo shareecada islaamka xadka ku qaadna iyadaana dee horumarba ahba horumarka maqani muxuuba yahay dadku hadday kala nabad galaan dadku hadday walaaloobaan dadku hadday isjeclaadaan dadku hadday isdhex galaan oo meel lagu wada tukado oo meel wax lagu wada barto horumarkuna markaasu imaanaya deegaanka waa la imaanayaa dadkoola fara badan baa mujtamac baa soo dhex gelaya laakiin haddii weligeed qacdaasi u baxdo bani aadamkuna dhagta xunbuu wax ka qiimeeya waxaa la war meeshan waa meel bahala galeena yaa la tegin yaa la aadin yaa ganacsiga laga furan wadaadka waxbarashada rabo ha isku aadin iskuulka ha aadin waayo waa lagu dilaya laakiin marka ay dhacdo nabad oo balaara dhaco
مجتمع كلا إيماني مركزين وهرمر يوناقي خير فربنا بينو قارنا dadka muslimiinta ana de waa ogtihiin oo laydin ka sheekeyn maayo dhiigoodu waa isku mid darajo kasta hadduu gaadho qofku hadduu wax dilo ka kale uu la sameeyay hadday dumarku dumar dilaan waa loo dilay haddii ninka ragga ugu sarreeya gabadh uu dilo miskiina waa loo dilay hadday gabadhu madaxweynaha disho iyada uun baa loo dilay haddii wiilku wiil dilo wiil baa loo dilay ninka sayidka ee addoomaha leh hadduu addoonkiisa dilo waa loo tooganay addoonku hadduu sayidka dilo waxaa la odhanayaa addoonka bes baa lagu dilaya oo isaga uunbaa kuu dhigma dhiigku waa isku mid oo waxaa laga yaabaa dadku inay siyaadaan dumarka iyo ragga see la isugu leenaya waaba kala mage war magtu macana male caana kugu daatay meesha naftii baa laga hadlaya waxaan qiimaha leh ee siman ee isku midkahay waa dhiigga iyo nafta wey wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wayascaa bidimmatihim adnaahum dadka muslimiinta dhiigoodu waa isu dhigmaa kuf waa isku mid dhiigoodu markaasuu wuxuu yidhi nabad maxaan ku idhahdaayey magangelintoodana waxaa ka shaqaynaya kooda ugu hooseeyay maxaa looga jeedaa gaalaynu shahaynaa cadowga aynu birta iska asrino oo il iyo aragti ay naga dhaxayso haddii maanta mid magani intuu soo cararo wiil yaroo innaga ka mid a ama qof dumar intuu gurigeeda galo uu yidhaahdo magan baan ahay hallay badbaadiyo oo ay tiraahdo anaa magan geliya la taaban maayo qof muslima hadduu qof magan geliyo magantiisu waa looma dhaafaan intuu doona ha leekaado qofkaas ama addoon ha ahda kan muslimkaa ama gabadh ha ahda ama wiil ha ahda ama oday ama addoon wayascaa bidimmatihim adnaahu nabigaa yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu yidhi yaan loo dilin qofka muslimkaa yaan gaal loo dilin yacni meesha ay kala duwan yihiin oo kala qiimo badan yihin waxaa weeye muslimku hadduu 100 gaal dilo loo dili maayo dulmi hadduu ku dilo xataa loo dili maayo bal shareecada eeg muxuu qofka dhiiggiisu muxuu qiimo ku leeyahay laa ilaaha ila allahu baa qaali ka dhigta qaali laa ilaaha ila allahu hadduu waayana waa qof jabay sida badeecaddaa jabtay ee dhacday oo kale wey marka qiimihiisu waa laa ilaaha ila allah mar hadduu shahaadanayo carab iyo cajam iyo afrikaan iyo eeshiyaan waa isugu mid hadduu gaal dilase loo dili maayo wuxuu kaloo nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam qof ballankiisu ahaa yaan la dilin isagana lama dili karo waa xaraam haddaynu gaal la heshiinno maanta heshiis kala qoranno waran waa idinla joogayaayoo meel aadi maayo dhibna idiin geysan maayo ilmaada rayaalo u daaya la taaban maayo hadhow ninkii inoo daba maraayay waa dembi aad iyo aad u weyn axaadiista qaybo waxay sheegtay inuu ahlu naar ba yahay qofkii qof lagu heshiiyeyaan la dilin daba mar oo dilaay naartaa la gelinaya nabigu salawatullahi wasalaamu calayh qodobka inoogu dambeeyo arrinta aynu kaga hadlno waxaa weeye wuxuu nebigu yidhi qofkii soo dhawaysta qof dembiile ah sida mid dhiig galay oo kale oo dhagar qaba ah qofkii soo dhawaysta ilaahay lacanadiisaa ku dhacday waxaa ku dhacday lacanada malaa'igta waxaa ku dhacday lacanada dadkoo dhan buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh waxaa dhacda oo innaga waxyaalaha dulmiga waxaa ka mid ah qof baa qof dilaya waxaa lagu dadaalayaa sidii loo fakin lahaa qofka waxaa lagu dadaalayaa in la dhoofiyo dad fara badan oo marka hore aan waxba tari jirin baa lacag loogu soo shubaya kaasna intaasuu u diraya kaasi noorigii buu bixinaya kaasi dhar buu u gadaya kaasi neef buu sii qalaya kaasi waa sii kala hagaya telefoon iyo bilbeed buu kala wada miduu waa dhoofinaya dadkaasoo dhan lacanada ilaahay baa ku dhacday oo lacanada malaa'igtaa ku dhacday oo lacanada bani aadamka ilaahay yaqaano oo dhan baa dusha laga saaray qof dhagar qaba ah kelmadna allaha ka dhigay ilaahow ishoo aad kala hadashaa may noqoto waxba loo sheegi maayo oo loo naxariisan maayo walaalkaa hadduu yahay aabbaha hadduu yahay soo dhawaysan mayse gaadhiga ku qaadi mayse u doodi maysidoo golaha odhan mayse maya waxbaa ka horreeyeyo waa kanoo shalay bay waxaas dhaceen maya ilaahay lacanadiisa ma qaadi karta maya buuraha iyo samooyinka iyo dhulalku lacanada ilaahay ma qaadi kara naftaada haaliy qodobkaana waynu ku nuuxnuuxsananaa yaan qofkii dhib geysta oo bulshada dhiig ka galay gacan loo noqon gacan la siin ilaahay lacanadiisa oo aad u khatara iyo cadhadiisa qofkaan ku dhacaysa